qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu hadduu Xasan Sheekh yimaado Sool ama Laascaanood ay dhaawac weyn gaarsiinaysa. Sool waxa weeyaan gobol ka tirsan Soomaaliland. Ruuxantii beryahanba waan la soconay in xukuumadda aynu jaarka nahay ee Soomaaliya ee madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh inuu Soomaaliland duulimaad ku hayo. وهاك داوديال waxa xarunta telefishinka codka bariga Afrika ee gula sugan Mursal Maxamed soo dhaw marka kood Mursal walaal xisbiyeero bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam hay Mursal wad la socotay madaxweynaha Soomaaliya waxa gogol nabadeed dhigay gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceerigaabo halkaas ay ku sugan yihiin wasiiro iyo salaadiin iyo waliba badiba guddi ka shaqeynaysa nabadda markaasi Ceerigaabo bal arrimaha noocaas ah maxaad kala socotaa maxaa kaaga baxay bismillaah alxamdulillah runtii waan ognahay inuu madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo u saaray guddi nabadeed inay xaka nabad ka dhaliso erga uu saaray madaxweynuhu ruuxantii waan la soconaa madaxweynahana iyo xukuumaddiisuna way ku ammaan yihiin in halkaasi nabad labada beelood ee walaalaha ay wada degaan ruuxantii dhexdooda la soo dhigo nabad aad iyo aad bay xukuumadda ugu amaanan tahay in ergada uu fidiyay madaxweynuhu waftigaas oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Cabdalle Maxamed Carab iyo salaadiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan iyo guddida nabadda iyo guurtida oo runta nabadaas ka qayb gashay aad baan ugu boorinaynaa uguna amaanaynaa tallaabada wanaagsan ee quruxda badan leh ee ay qaaday xukuumaddu shacbiga reer Sanaag ama gaar ahaan magaalada Ceerigaabo waxaan leenahay nabadaasi soo dhaweeyaan leenahay ruuxantii waxa kaloon leenahay muddada ay socoto waawaanta nabadda ee laga dhalinayo Ceerigaabo inay wax huba magaalada aan lala soo dhexgelin oo hubka la iska ilaaliyo ayaa runtii reer Ceerigaabo anigu ku boorinayaa waxaan leeyahay nabaddu cid walba waa wadan marka waxaan leeyahay la soo dhaweeyo ergada nabadda wada reer Sanaag iyo reer Ceerigaabo waxaan leeyahay aad u soo dhaweeya kalana shaqeeya amniga iyo nabadda guddida hawsha u xil saaran waxa kale oo runtii iyagana aan la hadlayaa gobolka Salal oo maalmaha ugu dambeysay ay ka socdeen rashwado oo iyagana kula talinayo inay mid noqdaan oo waxyaalaha soo dhexgelaya ee amni xumada ka sameynaya deegaanka ama gobolka Salal in mid laga noqdo oo la iska ilaaliyo wixii dhibaato keenaya baan iyagana kula talinayaa Mursal wad la socotayo waxa social media 24 saacadood u dambeeyay la qaada dhigay in la leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud baa imanaya magaalada Laascaanood horna wad la socotayo magaalada Laascaanood Sool bari qaybtii Soomaaliland ula baxday xaalad baa ka jirtay imaashaha uu Laascaanood imanaya saameyn noocyo ay ku yeelan sababta Soomaaliland waxa weeyaan Sool waxa weeyaan gobol ka tirsan Soomaaliland ruuxantii beryahanba waan la soconay in xukuumadda aynu jaarka nahay ee Soomaaliya ee madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh inuu Soomaaliland duulimaad ku hayo oo runtii gobolkii ka tirsanaa Soomaaliland ee Sool uu rashwado iyo isku dir dadka dega u dhaxwaday waxaanu leenahay maantana wuxuu ku soo wajahan yahay inuu gobolkii Sool yimaado ama magaalada madaxda Laascaanood taa waxaan leenahay Xasan Sheekh Soomaaliland duulimaad buu ku yahay waxaanu se ka filaynaa oo runtii halka aanu ka sugaynaa inay ka jawaabto oo ay ka hadasho arrinkaasi xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gudoodanka ka yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi inuu arrinkaasi ka jawaabaan oo ay gaashaanka u daruuraan madaxweynaha Soomaaliland ayaanu taa ka sugaynaa inuu ka jawaabo waxaan leenahay qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu hadduu Xasan Sheekh yimaado Sool ama Laascaanood ay dhaawac weyn gaarsiinaysa marka
wax Somaliland lid ku ah ama dhaawac gaarsiinayna in xukuumadda Somaliland ay qaadato iyo shacabka reer Somaliland maaha marka waxaan leenahay si degdega xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi go'aan ha u qaato oo arinka Xasan Sheekh ha ka jawaaban leenahay intaanu ka soo degin Laascaanood farxadda iyo wadajirka qoyskaagu waa adeegsiga xawaaraha sare leh ee internetka Telesom Fiber ku xooji ganacsigaaga internet xawaare sare leh oo aan kala go'ayn shirkadda Telesom waxay casriyeyn kuugu samaysay internetka fiberka guryaha iyo ganacsigaba si aad u soo gashato fiberka Telesom booqo xarunta kuugu dhow amba ka dalba website-ka telesom.com sidoo kale waxaad garaaci kartaa lambarka xidig 121 Telesom Fiber waa internetka ugu xawaaraha sareeya dalka